الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين walaalaha sharafta le meel kastoo joogtaan waa idin salaami waa walaalkeen macal cusmaan oodkac oo maanta brograam halkan inkiga soo gudbinaya badanaan inkiga soo baxa dugsi alkhayr oo ku yaala xaafadda Hayes London maanta inta yarta waxay ku saabsanta walaalayaal inaan raacno instructions and science waa maxay calaamadooyin iyo tilmaamooyin meel ku qornada aratid oo sharci la dejiya raac sharciga la dejiyey run ahaantii aday faa'iido kugu jirta anay faa'iido ugu jirta xagga dhaqaalaha xag ugu jirta xagga dowlad ahaan ay ugu jirta maxaa u daliila nabiyullaahi zakariya markuu ilaahay ka bari inuu carruur siiyo waxaa la yiri mataqaana waxaan kuu siinaa wiil yaro yaxya markaasuu ilaahay uusan ku gartaa waxaa lagu yiri calaamooyin aan kuu yeelaynaa calaamooyinka haddaad isku aragta insha allah waad helaysaa markaasaa la yiri qaala rabbi ijcal lii aayatan qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa halaatha layaalin sawiya waxaa la yidhi calaamooyinkaada waa inaad dadka la hadli waayso 3 maalmood oo xiriir ah inaad dadka la hadli waayso taasaa u calaamad ah oo siman marka yani calaamooyinka haddaad isku aragtid waxaa weye insha allah waad helaysaa weye marka walaalayaal waxaan saas u leeyahay waxaan arkay ummaddeena soomaaliyeed waa ku dhib inay raacdo wax meel ku qoran qofkiio soo hortaagan oo u sheegay war waxaan waa sharci darro yay rabaanba inay jiiraan saas awgeeda ani waxaan arkay meel yaraan mas-uulka oo dugsi ah barking buu leeyahy barkingkaas waxaa ku qoran strictly no parking yani sida ugu adag lama dhigan karo 1 minute allah ka dhiga ummaddeena soomaaliyeed waxay leeyihin 1 minute aan soo noqonaya marka meeshan waxaa loogu talagalay macalimiin inay soo dhigtaan macalimiinta imaanayso ragabaa meesha iska taxdiba waxay leeyihiin macal cusmaan adaan kugu soo raacnay ani markaan eego ummaddeena soomaaliyeed arrintii baan research ka suubiyey lana gudaheeda waxaa soo baxday 250,000 pounds 200 waa a quarter of a million ayaa ummadda soomaaliyeed la ganaaxaa sanad kasta maxaa yeelay kausma raacaan instruction and science lacagtaas yaa u baahnaa anigaa u baahnaa dalkeyna hooyadaa u baahneed qofka laakiin sharciga hadduu raaci lahaa lacagtaas kama lunteen ani marka waxaan is iri arrintan ayada ah waa in tilaabo sharci aad ka qaadid qof kastoo meesha dhigto waxaan ku yidhi meesha akhri maxaa ku qoran strictly no parking qofka wuu iska dhiganaya marka ana ganaaxaan bilaabay marka inaan ganaaxo walaal ani marka waxaan idhi sharci markay noqoto cidna isku halaynin saas awgeeda ilaahi subxaanahu watacala wuxuu ya ayuha aladiina aamanuu atiicu allah wa atiicu rasuul wa uli lamri minkum war kuwii alla rumeeyeyo alla raaca nabigiisna raaca kuwa mas-uulka inka an raaca wixii idin sharci idin dejiyaan raaca wey marka laakiin waxaan arkay dadkii mas-uuliyiinteed ayaa run ahaantii sharcigii xoogayga waxay leeyihiin waniyow hebel oo saaxiibka ah ama qaraabada ah ama inadeerka ah miyaa sharcigan la tiigsan kartaa saas ogeed maxay noqotay sharcigii inuu asaga meesha mas-uulka horta marka ku tunto qofkana u qalaynaya qof kale u qalaynaya saas awgeed maxay noqotay dowladdan inay naga lunto fiiri dowladdan aa luntay waxay u luntay waxaa weye isa soo raac yani wuxuu ku leeyahay guddoomiyaha meel mas-uulka ah kaba soo qaad gobolka banaadir wuxuu leeyahay war guddoomiyaha anaa naqaan anaa kasoo dhamaynaa dhimalaniyo adigo waxaad yeelaysaa waxaad u baahantay ii sheeg guddoomiyihii laftiisa waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay warniyow sharcigan ma hebel oo saaxiibka ah in adeerka ah ama walaalka ah miyaad sharcigan raacsiin kartaa marka maxay noqotay in saaxiibka inuu kaa xumaado darteed ina sharcigu ku tunto yaa sabab u ah anigaa sabab u ah adigaa sabab u ah marka ummaddii waxaa isaga qaldam ummaddeena soomaaliyeed wixii naxariisa waa gooni wixii naxariis ah qofka masaakiinka qofka mataqaanaa run ahaantii xanuunsan qofka mataqaanaa odayga ah yani dadka u naxariiso laakiin qofaa sharci jibiyey sharciga intaad ku oogi lahayd
waxaad leeda maya maya ma iska daa anu qalleeyo. markaan naxariistii ilaahay una amray iyo sharcigii jibinteedii waa in loo helo, yani arrin waa in loo helo waay. arrinta loo helo waxaa waaya oon aniga suubi run ahaantii oonu ku guulaystay, qofna u soo dhaweynay ninkan waa saaxiibkay, waa in adeerkay, waa walaalkay, qaraabaana ha u soo dhaweynin. sharciga qofkan ma jibi, qof sharcigeedaad ku qaato. qof kastoo qofka parkinka dhigto walaalkay hadduu yahay waa ganaaxayaa, because meesha waxaa ku qoray inuu akriya ahayd, aniga ay soo raacin, sharcigaas raac. marka calankaas meesha waxaan u dhigi qof kasta oo meel mas-uul ka ah hadduu qofku u imaado sharcigaas raaciy, wallahi dowlad waa lahanaynaa. gobolada badan hadda shuruuc baa ka jirto, somaliland, puntland, mataqaana jubbaland, meel kasta sharci baa ka jira. sharcigaas isaga dadweynaha haddii la qaadsiiyo, dadweynaha waa raacayaan. dadweynaha qofkaas mas-uulka hadduu wixii horkaca waa raacayaan. markaan waxaan u baahannahay markaan ummad sharci raacdo. midda kale nabigeena subana sallahu alayhi wasalam wuxuu yiri, mathalan guri aad dhimaaday, albaabkaad qaraacday, qaala rasul lahi sal allahu alayhi wasalam ida ista'dana axadukum falam yu'dan lahu falyarjic. aan ku elay xadiidka si fiican u dhegeysa walaalkay. ida ista'dana axadukum falam yu'dan lahu falyarjic. midkiin hadduu idin dalbo guri inuu soo galo ama meel soo galo u qaraaca 3 jeer oo laga furi waaye, tartiibtu waa iska noqdo. laakiin dhaqankeenu waa maxay? waxaa qofka waa xaasid, mataqaana dhulku naga furi waaye, waa qaraaba goys, warkan muxuu ahaa? qofkii marka waxaa la rabaa xadiidkan waa in la baro. mathalan kaba soo qaat in albaabkaad ku soo qaraacdi waa lagaa furi waaye, tartiibta xumaan ha qaadin, qofna ha ku colaadsanin, xadiidka nabiga ku camalfal, iska noqo. laakiin dhaqankeeni iyo diintii dhaqankii baa yara bati, qofku waa isxumaynayaa. laakiin ani waxaan dhihi lahaa qofka meesha mas-uulka ah sharcigu qofkan ku ciyaaray darteed, adiga ha isdhihin qofkan walaalka waa saaxiibka, mataqaana ha isdhihin u qaley. qofka markii dambe waa la qabsanayaan. hadda rag badanaa anigu meesha yartoo parkinka aan mas-uulka dad badanaa la qabsaday ma dhigtaan. hadda weliba rag baa waxa igu yiri markaan central dhan marayn waan kusoo tabnaa, kuma saqijaano meel ay ku qoran tahay. maalin baa waxaa ii yimid wiil baa ii yimid, meesha horteyda waxaa ku qoran business permit holders. dadka waa wada garanayaan, dadka businesska bisa loo ogolyahay. waa inaad permit kasoo goosatid central mataqaana councilka oy ku siiyaan. dadka businesska bisa loo ogolyahay. midaa dhigtay meesha horteyda ah, ninka ganaax ayaa yimid. markaasaa mid soomaaliya hor istaagan, kiibaa hor istaagan oo ka celinaya. anigu ii yeeri wuxuu yiri macal cusmaanow, waniho ninkan soomaali gaarigan soomaali baa iska laha, bal u soo yeer meelahan ku jiraan u malaynaya. markaasaan ku yiri niho iska daha la ganaaxaya, waniho naxariis darneeda ugu yiri fiiri marka soomaalinimaa ku qaadaan dhahay. war walaalayaal ila dhegeysta, ninkaa soomaalinimaa qaade, laakiin ma fiirinayo ninkan inuu sharci jibiyey. meesha maxaa ku qoran? waa akhriyey, intuu akhriyey buu kas u yeelo iska dhaqaajiyey. 2 minutes aan soo noqonaa. war soomaaliya ani waxaan inkigidigiya anin iskidigiya waxaa la yihahda 1 minute iyo 2 minutes la yiraahdo. horta halkaasaan iska dhigno, wixii sharci ma yahay siduu yahay u raac. 1 second hataa lama ogolo, hadaa lagu dhaha laguma ogolo. wiilka asaga waa saaxiibkay, waxaan ku iri walaalow soomaali ma rabnaa inaan dhisno. haa, qofkan sharci ma jibi, haa iska daa ninkaa ganaaxa. markii dambe walaalkii saaxiibkay waaye waa ka dhaadhiciyey. markii dambe mataqaan okay yiri. marka waxaa la rabaa waraadi meel mas-uul ma ka tahay? abti dalkeena soomaaliyan dhisno. aniga soomaaliya waxaan ka dhisana parkinkan yarko mas-uulka ah ayaan ka dhisan yiri soomaaliya. see baan ugu dhisaya? dadka dhan waxaan barayaa strictly no parking. marka walaalayaal fadlan waxaan idin barayaa instruction and science ha la qaato. wax allaala wixii calaamada ood aragtid, waxa sabab baa meesha loogu qoray. haddaa lagu sheegana sideed u qaado. dadka kaleo mas-uuliyiinta ayagana waxaan ugu digayaa, qofku waxaad tiraahdaa markay sharci noqoto ha isku ka halaynin. sharci markaay noqoto ha isku ka halaymin. saaxiib ha soo dhaweysan oo sharcigaada sharci jibiyey, walaal qaraabo in adeer. maxaad u suubinaysaa? marka koobaad ilahay darteed u suubinay, because dadka ummadda waxaa la rabaa isku mid inaad ka dhigtid.
marka labaadna dowladeena Soomaaliyeed ku dhisaysaa dowladdaas ku dhisi kaws halkan haddaan sharciya raacno markaad tagtid jamaama ama muqdisho tagtid ama aad tagtid mataqaanaa gobolada kulli sharciga baad ilaalinaysaa de because in yar oo qof meel mas-uulka eed raacday marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobayaa waa anigoo macal Usmaan Oodkaca ilaahay subxaanahu watacaala aan ka barya ummadeenna kuwii sharci raac allaha ka dhigo waana raacayaani laakiin dadka mas-uulka ka ah soo dhaweynta iyo qofkaana mukaa xumaada iyo sharci hajibi darteed ha ku tunto qofkii u qalaynaa kuwaasna waxaan leenahay ilaahay subxana wataala soo hanuuniyo mataqaana wadada saxda ummadeena allah ku rida ilaahay subxana wataala dalka allah noo dhiso kuwii shuruucda ilaaliya allah naga dhiga sharciga ilaahay ugu horeeyo kii kuwa ilaaliyo ku dhaqma allah naga dhiga baaraka allahu fiikum jazakum allahu khayr jazaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu